Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, everybody in the world. We're just very close for the sunset. The time of that is very close, and today I would like to share with you for this information that 90% of Somali men either they have killed someone, or they love or like to kill someone, or support someone killing others. The question is, why do Somali men love to kill others? Why they like to? Why they think why they like to fight and kill and take innocent lives? I don't understand that. Listen. And why 6% of Somali women support for their men to kill and take innocent lives? Why Somali women support their men for killing, murdering innocent human being? 1.5 million Somalis were killed in the civil war in Somalia since 1991, after the collapse of Siad Barre, who ruled the country with a peaceful and development more than almost 21 years. Siad Barre's regime collapsing. But what was next? Chaos, killing, kidnapping, rape, murdering, taking innocent lives. The world is tired from Somalis. If a murder or a criminal kills someone in Australia, the first suspect is Somali. If an attack took place in Paris or in Europe, the first suspect is Somali. Why? Why do these Somali people love to kill? The Somali media, the social media of the Somalis is about killing, murdering, taking lives, nothing else. Nothing else. Watch the Somalis talking in the Facebook, in the social media. They're about to kill. Nothing else. To take a life, not to save a life. Listen today. One of the Somali chiefs is telling you how many people died in the last war in the northeastern of Somalia. Listen. dadkii maanta bashay tiradoodii iyo cidday kala yihiin Ismaan Maxamuud sagaal Ciise Maxamuud 10 baa ka dhimatay Dhulbahante 20 Dhulbahante Warsangeli 11 Warsangeli Fishiishe 7 Musa Harti 7 Madibaan 5 baa ka dhimatay Ali Saleebaan 2 baa ka dhimatay Elkase 3 Umar Maxamuud 2 Gahayde 3 Awrtable 2 Waar Saleebaan 3 balaha 2 Mariixaan waa la qafaalay Idig Faale 1 second saraakiisha la dilay waa 7 korneyl dadka la qafaashay inta tirada lagu qafaashay waa 20 laga yahay sidii dadka loo baabiyay waa sidaas waa Sultaan Qutb. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, so you see, almost the last 30 years, Somali men. Now you heard one of the Somali chiefs talking about how many people died in the northern eastern of Somalia. Almost more than 120 people were killed for a day or two, and almost 20 or 30 people were kidnapped, and almost maybe 50 or 60 others were injured. Barbaric attacks. So the Somali men live like a primitive stage of this world. They can't sleep until they kill someone. They are blood suckers. Somali men are blood suckers. They are blood suckers. They love to shit the people. The blood of the... You heard now the chief talking. I was telling you that they killed almost 150 people.
Gas. If they kill it one day, 150 people times 30 days. He's throwing me up. Imagine how many people dead and how many people they killed for the last 30 years. Maybe 2 million people. Wariya si baan dhageysta ragga Soomaaliyeed waa dad qalato waa dugaag hadii say hadda maqlaysay ay dhimatay dad gaaraya 150 qof la dilay 20 la qafaashay ama 50 inta la og yahay 680 hal maalin la dhaawacay 30 ku dhufo maalmood ku dhufo 30 sano wax ku dhow 2 milyan oo qof baa disheen yaa dugaag yaa bahalo yaa xayawaan Soomaaliga hadla dilbu ka shaqeynay hatta meediyaha Soomaali dawladda wax bishaara amale meediyaha Soomaalida oo dhan waa dil dhac kufsi ay qabyaalad xaraan kufsi wax male naxariis male dilay gudmaan wax runa male wax akhlaaq male wax dhaqan male wax sinjiye male waa dadka cunaha dilay gudmaayo oo dhamma dilay gudmaayo anoo reer hebel halka la fadhiyo dilay gudmaayo nothing else anoo reer hebel ba inta dilay ku fariiqana anoo reer hebel duulayna come on adduunki waa in ka daalay Australia hadii qof la dilo qofka ugu horeeyo la ciirsanayo la baarayo la jir dilayo la soo xirayo waa Soomaali Europe hadii dil ka dhaco waxa ugu horeeyo la ciirsanayo la baarayo la xirayo waa Soomaali Britania hadii wax dil ka dhaco dalka Ingiriiska waxa ugu horeeyo la soo qabanayo waa Soomaali Mareykanka hadii dil ka dhaco wax habar jinni hadii wax weerarto Jamaicaana waxa la soo qabtaa waa Soomaali why because their men are killers they are blood suckers ragga Soomaaliyeed ba dhiig yacaba waa gacan ku dhigla iyo maan ku dhigla iyo miyir ku dhigla iyo qalin ku dhigla iyo dubur ku dhigla iyo af ku dhigla iyo balaayo ku dhigla xaraan shay way ku dhigod Come on, Haji, I gotta go. all right Doing my time. yeah I will listen couple of minutes please okay I give you a right wait Come on. couple of minutes okay couple of minutes okay Man, we have a heart attack and go. Especially out like let's go. okay When you go your band, I'll come back. okay marka waxa weeyaan warka walaalayaal ummad waxa lagu yaqaanaa sharaf leh waxa lagu yaqaanaa nabadda inay ka shaqeyso horumarka inay ka shaqeyso wax soo saarka inay ka shaqeyso development inay ka shaqeyso business tacliin technology diin akhlaaq horumar dad dugaag wadil warya annaga hadii gudma bal u fiirso dhalinyarada media ku jirta Soomaaliya aniga hadda dagaal iyo galay ka shakeeyo 5 baa soo galaysa oo wada xaraan gunaha wada dhigyaha badina kadmay hadda la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ka shakeey Soomaalidu waa walaalo waa ehel waa sokeey waa isku dhiig waa isku dhacaan dalkeena aan ilaalsano khayraadkeena aan ilaalsano dawladeena aan dhisano horumar aan gaarno aan cadaalad ku noolaano waa kii hadii la kudmaayo hadii la farmaajo uu waashay farmaajo hadii la kudmaayo is farmaajo ما شالوا بوفنا كتك دلائك with my he will give you a right yeah he will give you a right okay. Let me give you a couple of Can you drop me off around the corner? This guy make me late to take me to work. Well, come on, Haji. He said he can't do it. Just end your prayer and let's go. There ain't no money. Just end your prayer, let's go. You're gonna drop me off. You're doing a lot of my time. take This go. ain't no money. yeah go Oh, Haji, come on. You gotta try more than that. Not to waste my time. Next time you call me, I ain't gonna come. all right maqlaysa marka dilay with my Come on, Haji. I need more than this. My trouble. give me the key I ain't got the key. You got the key. go Come on, Haji. You gotta give me more money than this lesson. Me and you both gonna be on Facebook. all right marka walaalayaal insha Allah waxaan idin leeyahay Soomaaliyay barakallahu fiikum marka waxaan idin leeyahay hadda waxaad maqlayseen hadii la kudmahayo dad muslimiin oo lalaayay dad baa ku raaxaysanay marka waxaan baryahan oo dhan aan xoog saari doonaa in 90% ragga Soomaaliyeed ay dhigyacab yihiin waliba Soomaali diaspora xoog saarayaan oo luqadaha ajnabiga ku hadlaya ayaan ku hadli doonaa in 90% ragga diaspora jooga ay yihiin blood suckers ay
oo bloodshed ay ka soo qayb qaateen oo dhiig soo daadiyeen oo muslimka ay laayaan oo caalamku u baahan yahay dadka Soomaalida inuu iska ilaaliyo hadii ay ku idmaayo oo dalalkooda ay ka ilaalsadaan caruurtooda ka ilaalsadaan suuqyadooda ka ilaalsadaan واي هل مليون إلى 2 مليون قفنا دلكودي وكسو دلين إلى هذا دلكودي بيجوبيان وأنا وح مارتي دينتي أو أن بني آدم يهيمانتي عن لهين وح عن لهين وح هدي لا يكون مع أخلاق عن لهين ويرجع الصوماليين سرع يا سحرير يهوجي هلاك دلكودي بضي ومضى عالم كان بضي هدي لا يكون معي الدونكو وإنه مركنين كالصومالي جماس مريو وإيش كوها هدي لا يكون معي لا All right, so I know, but assalamu alaikum wa rahmatullahi.